السلام عليكم maxaad adiga isbedel u sameyn laadahay maxaa ku diidan inaad isbedel samaysid waliga isweydiis su'aalahaas waa laga yaabaa inaad isweydiisay waa laga yaabaa inay jawaab khaldan ku soo baxday waana laga yaabaa jawaab aad ku qanacday inaad heshay laakiin maanta halkan waxaan kugu sheegi doonaa qodobo dhowr ah qodobadaas oo ku sheegay sababta ku diidan ama macnaha sababta ku diidan ba inaad adiga horumar samayso isbedel samayso insha Allah sababahaas halkan kugu sheegi doonaa sabiye fara badan aad hada ku cusubtahay channelka noo subscribe garee insha Allah muuqaalkana like inoo sii bilaabano sababka ugu horeeya wuxuu ku leeyahay go'aan jilicsan ayaad leedahay adiga markii aad go'aan ku qaadato inaad caado iska bedesho ama aad caado noloshaada ku soo kordhiso taasoo faa'iido ku leh sidii loogu talagalay go'aankaas uma fulisid ama uguma dhaqantidba maalmahaaga waxa ku dhamaysaa insha Allah bari ayaan si fiican u bilaabayaa oo maanta ma awoodo inaan qabto hay maxaa ku diiday inaan maanta qabato I don't know laakiin stepkan waa muhiim waana tahay qofkaas sida fiilay Soomaa laakiin waa iska deyn doontaa muuqaalkan gadaashiisa insha Allah stepka labaad wuxuu ku leeyahay ku dayasho waxaad ku dayataa qofkaas oo kamid ah dadka adiga ka agdhow marka aad aragto hebel oo rabo inuu wax qabsado maanta adiga waxaad isdhaahdaa maxaa ku diiday adiga ma wax qabsatid maxaa ii diiday aniga qofkaas wuxuu qabsanayo kalamaan qabsado muxuu ii dheeryahay way fiican tahay inaad qof wax wanaagsan kaga dayato laakiin hadaysan ba ka go'anayn noloshaada inaad wax ka bedesho ama hebel aad uga dayanaysid macnaha hebel buu sameeyay adna iska sameeyay hadii ka tahay ogow maalmo kooban leh ayaad qofkaas ku dayan doontaa kadibna meeshaadii hore aad ku soo laaban doontaa sida carabtu dhahaanba kullu shay yarji'u ila asli shay walbo wuxuu u soo laabtaa meeshuu aslan ka tagay stepka saddexaad wuxuu ku leeyahay dib u dhigasho inaad dib u dhigatid waxyaalaha aad rabtay inaad qabsato tusaale jadwalkaaga wuxuu ahaa 2 ragcadood inaad dukatid salaada subax ka hor waad kacday laakiin hurdada ku haysay awgeeda macnaha hurdada adiga ku haysay daraadeeda waad ku laabatay hadana oo waxaad tiri mataqaanaa bari ayaad bilaabi doontaa laakiin ogow maalinba maalin ay ku dhiibtay noloshan waa wax iska kooban hadda waxa laga yaabaa go'aanka aad soo sheegayo dhan salaada subax 2 ragcadood ka hor inaad dukatid waxa laga yaabaa go'aankaas inaad qaadatay 2020 2020 inaad qaadatay laakiin maalinba maalin si kugu soo dhiibaysay 2024 kula sii maroosa waa waree nolosha iska kooban tahay maalinba maalin ay ku dhiibtay waxa ku gaartay kaliya go'aankaaga jilicsan waxaad maanta qaban kartid bari ha u dib dhiganin cimrigeenu waa wax iska kooban cimrigeenu iska kooban yahay waqtigaad joogtid wax qabso stepka afaraad wuxuu leeyahay midka anaga oo dhan bahdilay ana iska bixiyo faanan igama ah laakiin waa iska reebaya stepka afaraad wuxuu yahay dhafarka waa midka dhalinyarada wiil iyo gabarba dhulka la jaray habeenkii xilli dambe ayaad seexataa waxaadna rabtaa noloshaada inaad wax ka bedeshid xilliga ugu wanaagsan oo qof noloshiisa wax ku soo kordhin karo waa xilliga loo yaqaan waa bariga ka soo qaad 10 saac ilaa subaxii 1 saac xilligan waa xilliga lagu kala tagay ama ay dadka isku dhaafeen laakiin adigu aad hurdaa xilligaas ama waxa laga yaabaa inaad adiga xilligan seexatayba hadana waxa aad leedahay isbedel waan sameyn laahay iska daa marka dhafar ka walaalo hadii aad noloshaada rabtid inaad waxyaalo badan ku soo kordhisid inta ugu badan dadku waxay isku dhaafeen waqtiga loo yaqaan waa bariga ama 10 saac ilaa 1 saac subaxnimo dadka markay waqtigaas wax qabsanayaan adigu aad hurdaa goormeed rabtaa marka inaad adigu noloshaada wax ku soo kordhisaa ama aad wax qabsato waxa ku dhiilaa marka inaad iska daysaa dhafarka stepka shanaad wuxuu ku leeyahay waqtigaaga inaadan maareynin adiga waa sax qof walba haduu maanta waqtigiisa maareen lahaa inta ugu badan waxa la joogi lahaa heerkan ka sareeyo sababtoo ah qofku waqtigiisa markuu u maamulo waxa uu fududaanayo in noloshiisii ama go'aanadiisii ama waxyaalaha horumarka uu rabo inuu sameeyo inuu ka adkaado laakiin qof waqtigiisa garan waayo goormuu garanayo horumarka ma balihidba xilli aad seexatid xilli aad soo kacdid ma balihid jadwal maalmeed aad noloshaada ku quruxsato sidoo kale ma balihidba jadwal sanadeed aad ku ogaanaysid wixii ku soo qabsamay iyo waxaan ku qabsamin ma balihidba jadwal wax aqris aad maskaxdaada ku dhisaysid nolosha waxay noqotayba inaad toostid aad wax cuntid haddana aad ka seexatid inta ayaaba ku soo laalaabataa adiga goormeed ka fikiraysaa horumarkaaga stepka laxaada wuxuu ku leeyahay salaad la'aan ama inaad salaada qaar ka tagtid qaarna aad dukatid qofka dukanayo marna iska dhaafayo waxa ka wanaagsan kan toos isaga dhaafay aan ba dukanayninba sidee ayaad leedahay 2 salaad ayaan dukaday qof aan 2 salaad xitaa aan dukanin sidoo igaga wanaagsan yahay ka wanaagsan yahay asmaanta 2 salaad ma dukan wuu iska daayay ilaahay wuxuu ugu necab yahay dadka dugta salaadna dugta salaadna dhaafa salaad dadkaas uu ugu necab yahay dadku ilaahay jecel yahay inaad ka mid noqoto hadaad rabtid waa inaad salaadaha dhan dukataa qofka haduu safooda dhulka dhigin ama uu soo madaxa dhulka dhigin rabbigiisana uusan u laawanin iska daa inuu soo horumar sameeyay waxyaalo u dhow xitaa ha filanin qof joojiye xiriirka ilaahay iyo la kulankiisa isbedel ma sameeyo maanta hadii ay ku soo wacdo abaaheeleyda ashukaasatida ku dhahdo xabiibi waxa rabaa maanta inay ugu kulantid beerta hebel waxa isku soo qurxinaysaa isku soo shidaysaa sidoo ilaahay og yahay waa isoo kalkicinay waa isoo carfinay waa iska soo dhisaysaa waxaan u soo ordaysaa oo u faraxsantahay inaad la kulantid qofta aad xiriirka la leedahay ma isweydiisay maanta la kulanka kan ugu sharafta badan iloo yahay kan ilaahay hortiisa la istaago salaada loo dugto loo rakuuco loo sujuudo ma ogtahay ilaah la sheekaysanaysa alxamdulillaahi rabbil caalamiin arrahmaan ilaah u mahadinaysa ilaah la sheekaysanaysa ma ogtahay inuu yahay la kulanka ugu fiican adduunyada inuu midka yahay iska daaba kan aakhir waaba oo la sheegayba qofka wuxuu ugu muhiimsan u helaa inuu yahay aakhir markuu tago inuu wajiga ilaahay arkaa waxa kaliya arkan waa janna qofka adduunyada
ilaahay mar walba kula kulmi jiray oo la kulanka ilaahay ama meetingka ilaahay uu qiimeyn jiray aakhiro kala uu la kulmaya haduu ilaahay uu qoro laakiin maanta inaad ilaahay la kulanto badana waxa ka doorbidaa inaad gabadha yar aad shukaansato la kulanto waa isqurxisaa waa iscarfisaa abaayada haday kaale ila kulanku dhaad waa orodaa laakiin ilaahay waqtigiisa markii misaajidka lagaaga waxa uma orodida waa kasii orodaa steepka ugu dambeeya wuxuu ku leeyahay isbedel bila ficil ma jiraba waa sax waxa doonaysaa inaad isbedeshid haddana waxa tahay bila ficil oo madeys fiiri anoo jiifa maanta daadho waa inaad beri subaxii isbedela waa soo toostay ficillan ma sameynayso sidee isku bedelay adiga isbedel hadii aad rabtid inaad samaysid waa inaad ficil samaysaa tusaale waxa doonaysaa inaad maanta heesaha oo dhan iska dayso haddana teleefankaaga ayay ka buuxaanba iskama aadan daladin isbedelkii waa aad rabtaa laakiin ficilkii lagama hayo hadii aad isbedelkii rabto waxaad ku qasban tahay teleefankaaga waa inaad bilaa heesa ka dhigta aad daladaa kadib uu imaanaya isbedelka sidoo kale meelaha heesaha lagu soo gudbiyeen waa inaad ka dheeraataa tusaale YouTube-yada heesaha soo dhigo dhan subscribe ku saar notification-ka ku furan waxaana rabtaa inaad heesaha iska dayso sidee isaga daynaysaa marka waxaad isaga dayn kartaa inaad subscribe-ka iska qaado ama aad Gmail kala samaysato waxyaalaha hubigaaga aad daawato sida wax loo edit gareeyo graphic design-ada book hebel muxuu taraa ma waxa raadisid horta waa mahadsantahay hadii aad halkan soo gaartay waxaan rajaynayaa inaad wax uun ka faa'iiday laakiin intaad bixin hal mar subscribe ma isaarto hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir insha Allah like noo saar wax dhan waa iska rabnaa wax dhan inaad noo saarto iska rabnaa laakiin wax badan ma rabo insha Allah 30 mar inaan tagaa rabaa ka badan hadhow waa rabi mo waa iska rabaa laakiin hadda insha Allah 30k subscribes na gaarsiiya muuqaalkan qof walba daawadeen like iska saar horta inta soo gaartay wallahi lagu ma heli karo thank you so much insha Allah muuqaalka like noo sii